madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiya u diray qoyskii qaraabada ehelada iyo asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland ee ka baxeen Allah u naxariiste dhammaan marxuumiintii ku geeriyooday shil baabuur oo sababay dhimasho 7 ruux kuna dhaawacmeen 4 ruux kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala Basra Kaaba isla markaasina ay leedahay shirkadda Dalmar iyo gaari weyn oo loo yaqaan nooca Andhameydlaha shilka oo ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Lafaruug iyo Xamaas ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil maanta ay taariikhdu ahay 7 bishii shanaad 2019 sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku adkeenayaa mulkiilayaasha gaadiidka iyo shirkadaha gaadiidka ee u kala goosha gobolada Soomaaliland iyo wadayaasha gaadiidka inay u hoggaansamaan shuruucda gaadiidka iyo wadamarista muujiyana mas'uuliyadda nafaha muwaadiniinta ay qaadaan iyo ilaalinta maalka gaadiidka madaxweynuhu waxa uu wax laga damqado ku tilmaamay halista iyo khasaaraha soo noqnoqda ee shilka gaadiidku sababeen oo khasaare naf iyo maal bale u geystay dhammaan shacbiga reer Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu farayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka taliyaha ciidamada booliska iyo laamaha nabad sugidda wadooyinka inay fuliyaan amaawiirta iyo sharciga gaadiidka iyo wadooyinka isla markaasina ay waajibaadkooda saaran gutaan cid kasta oo baalmarta shuruucda wadida gaadiidka ay tahay mas'uuliyad saaran madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumiintaasi Allah uga baryaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo qoyskii qaraabada ehelada iyo asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland ay ka baxeen samariya imaan saadiqa Allah ka siiyo inta dhaawacan ee ku dhaawacantay shilkaasina caafimaad sare Allah siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame badda cas 24 TV magaalada Hargeysa